kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka maaweelada dhallaanka waa ka daawataan marka soo booqataan channeladan ku leenahay YouTube iyo Facebook ee dhalaan koriye toddobaadba sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekada toddobaadkan aan caruur idinku hayana waxay ku saabsan tahay ama se la yiraahdaa jiirkii loo abaalguday ansi ku bilaabo waxa la yiri bari hore waxa jiray jiir yar oo kalidii duurka ku cidloobay ka gadaal markii waqti hore oo noloshiisa kamid ay iswaayeen waalidkii iyo walaalihiiba waxa nolosha ka mutay ciil warwar iyo cabsi aan dhamaad lahayn waxaana si kaliya ugu noolaa duurka dhexdiisa warka murugada leh ee ku saabsan jiirka oo dhan kalena dooli loo yaqaano waxa warkiisu gaadhay noolaha kale ee kula noola duurka sheekada murugada leh waxay si gaar ah u gaadhay boqorada Siraad oo iyadu go'aan ku gaadhay in xaalka uu ku jiro jiirkan looga gurmado lagana saaro maalin maalmaha kamid ah waxay u dirtay bakayle waxay ku tiri u sheeg oo hadii uu cuno midhaha ku yaala geedka weyn ee boqorka habar dugaag harsado mararka qaarna seexda waa libaaxe inuu jiirku yeelo doono baalal uu ku duulo kuwaas uu kaga badbaadi karo cabsida iyo warwarka noloshiisa hadheeyay oo duurka dhexdiisa ugu nool yahay subax aroor hore isagoo kala haya jiirku ayuu wuxuu sikadiisa ula kulmay bakayle wuxuuna u sheegay warka loo soo dhiibay hadii uu cuno midhaha ku yaala geedka boqorka habar dugaag harsado inuu baalal yeelan doono markiiba si degdeg ah uma rumaysan warka bakayle uu sheegayo balse arrintu waxay jiirka xaqiiqo u leekaatay markii sidaas lamida uu ka maqlay boqorada Siraad oo yana sidaa u sheegtay bilowgii hore waxa uu ka muujiyay cabsi iyo warwar waxaana ku adkaatay sidii uu ku awoodi lahaa inta uu hormaro oo gadaal ka dhaafo boqorka habar dugaag oo cidina aysan u dhawaan karin haddana waliba uu ku daro inuu midhiisa cuno oo geedkiisa koro taas waxa ahayd wax adag balse wax kasta waxa uu mareeyay maadaama loo sheegay inuu yeelo karo baalal oo sida shimbiraha duuli karo midaas uu arkay xorriyad aan dhamaad lahayn oo noloshiisa gaadhi karo kagana bixi karo murugada iyo cabsida joogtada ah waxa uu isku dayay inuu iska dhigo sidii mid cabsi gelin kara boqorka habar dugaag waxa uu samaystay koofiyad macmala gaashaan iyo seef wuxuuna si toos ah u aaday goobtii loogu tilmaamay inuu ku yaalo geedka uu boqorka habar dugaag harsado nasiib wanaag markii isla goobta yimi waxa uu ku soo beegmay boqorka habar dugaag oo waqtigaas hurday si tartiib ah ayuu u dhaafay wuxuuna u fantay oo u koray geedka wuxuu markiiba soo goostay mid ka midhaha geedka ku yaalay balse cabsi daran u haysay dartii waxa si halhaleela uga siibtay oo gacantiisa uga baxay midhihii waxayna madaxa kaga dhaceen boqorka habar dugaag hurdada ayuu markiiba ka booday isagoo cadhaysan ayuu ku yiri waa kuma tuugay xadaya haddana waliba igu daray inuu madaxa igaga dhufto midhaha aan sinaba iga cabsanaynin tan oo kale hore ima soo marin isagoo cabsi iyo warwar la leecleecay ayuu jiirka ku qariyay boqor waaniga midhahan ayaan mid kamid ah cunayay waxayna runtii ila tahay in midhaha iyo khayraadka ku yaala duurka habar dugaag oo dhan u siman yahay sidaas darteedna aanay jirin cid adiga xaqaara iyo xuquuq ku siisay in kelida aad midhaha geedkan ku yaala sheegato aad ilaashato dhawaqa uu maqlay boqorka habar dugaag aad ayuu cadhageliyeen isagoo cadhaysan ayuu ku booday jirrada geedka si ba'an ayuu u gilgilay markiina waxa dhulka ku soo dhacay waliba gacantiisa si halhaleela ugu soo dhacay jiirka boqorka habar dugaag ayaa ku yiri ma aragta intay awooddaadu leeg tahay sidee ayaad ku badheedhay waliba aad isugu dayday intaad midhahayga xaddo haddana aad edabdarra ugu darto cabsi ayuu la gariiray hadalla kama soo bixin wuxuuse si halhaleela ugu celiyay caruuray jiirku boqor haddii aad abaal ii gasho oo marka tan aad idayso laga yaabay in waqti noloshaada ka mid aan ku abaalgudo waxa uu ku hadlayay jiirku sinaba uma aaminin boqorka habar dugaag balse waxa uu ka qashaafay inuu dilo kadibna si cadho leh ayuu duurka dhexdiisa ugu tuuray sida dhagaxa loo tuuro oo kale isagoo jiirku ku faraxsan inuu naftiisa la badbaaday balbaalal uu helaa haba joogtee ayuu ku cararay dhankii ay joogtay boqorada Siraad oo iyadu fikradan khatarta badan noloshiisa gelisay marka horeba lahayd waxa uu ugu warramay wixii dhacay sidoo ugu guuldareystay inuu midhihii cuno balse inuu faraxsan yahay weli inuu nool yahay waxay mar kale ku jiri
ogow markaan ku jirno halganka nololeed ay tahay inaynu ku gaadhno mustaqbal ifaya waxaan u baahannahay in caqabadaha koowaad iyo labaad ee nolosheena inaga hor yimaada aynan ku niyad jabin ee aynu ka gudubno mar kale dhabar adayg oo ku laaba isla halkii iskuna day inaad midhihii soo qaadato waxuu markan u arkayay ismiidaamin balse haddana hadalka boqoradda ayuu siinaba meel uga maro waayay isaga oo cabsi iyo warwar badan qaba ayuu mar kale soo aaday dhankii boqorka habardugaag joogay balse markan mucjiso ayaa dhacday waxau la kulmay boqorkii habardugaag oo shabag ugaadhsada dhigtay ku dhex dhacay qaylinaya oo itaaldarra dartii u qayshanaya cid badbaadisa markiiba wuxuu si toosa ula soo baxay seeftiisii waxauu ku googooyey shabagii uu boqorka habardugaag ku dhacay waxaanu sidaa ku badbaadiyey libaaxii waxaana boqorka habardugaag uu la yaabay abaalka uu galay jiirkan yar ee mar hore uu sida daran ugu xadgudbay duurkana ku dhex turay isagoo yasaya libaaxi waxa uu ku laabtay geedkiisii jiirkina waxau dib ugu soo noqday boqoradda siraad iyo bakayle wuxuuna uga warramay dhacdadii dhacday balse wax yarba waxaa isla goobtii yimi boqorka habardugaag libaax oo sida sallad midha ka buuxaan waxuu ku yidhi abaal ayaad ii gashay waanaad mahadsan tahay mar kasta iyo xilli kastoo aad doonto waxaad iman kartaa geedkayga waxaad ka cuni kartaa wixii aad doonto maanta laga bilaabana waxaad tahay mid ka mid a saaxiibaday ugu dhow ee noloshayda badbaadshay dhammaan aad ayay u farxeen balse waxay arrintani si baan u farax gelisay jiirkii yaraa waxuu si halhaleela midhihii qayb uga siiyey boqoradda iyo bakayle midba qayb ayuu cunay balse midkoodna baalal ma yeelan markii dambena waxau yidhi midhihii waan cunnay aniga iyo idinka midkiinna baalal ma yeelan ee maxaa khaldan waxay ku tidhi waxa laga yaabaa inaysan ku muuqan balse hadda baalal ayaad leeday duurkan ayaad ugu noolaan kartaa sidaad doonto cabsi la'aan adiga oo saaxiib la ah libaax baalal kuwaas ka weyn oo aad yeelan kartaana ma jirto maalintaas laga bilaabana waxay taladii ay boqoraddu siisay jiiru horseeday inuu ku noolaado xorriyad iyo farxad aan dhammaad lahayn waxaanu ka baxay cabsida iyo murugadii noloshiisa hadhaysay tan iyo maantana haddaysan dhimanin jiir iyo libaax labaduba iyaga oo saaxiibo midba midka kala qadariye ah ayay duurka ku wada nool yihiin sheekada tanna carruuree waxaan ka bararaynaa wanaagga ay leedahay abaalka la galo iyo sida in saaxiibadeenna ku dhibaataysan nolosha dhexdeeda ama ku ciilan ehel iyo asxaabtoona lahayn ay tahay inaynu dhiiri gelino intaynu tan iyo toddobaadka dambe ku kulmayno sheekada tan ku xigta waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo